cabdifataax waxa weeye horta baarlamaanku hawsha uu qabtay shalay ahaan waxa weeyaan mid dastuurka iyo danta ummadda ka soo horjeeda waayo sharci ma ay hayn sida wax u qabteen waxay qofka in fursad la siiyo uu isdaafaco hadhowna laga odayo taasi waa ta koobaad xasan khayre si quman buu u hadlay markuu ka hadlayay inuu dalka u turayo waxaase moodaa imaan fara badan inuu isa siinayo oon waddanka gudihiisa oolin waxa ka dhacay iyo waxa ka soo socday 3 sannadood markaa ammaan fara badan ayaa jirtoon runtii run ahayn laakiinse si wanaagsan ayuu meesha uga baxay isagaana ka ruud sarreeya maanta madaxweynaha iyo baarlamaankaba markaad dhageysatay hadalka ra'iisul wasaare xasan cali khayre iyo markaad aragtay ficilkii baarlamaanka ee shalay xasan cali khayre ma iscasilay mise xilkii waa laga qaaday ta ugu horreysa waxa weeyaan dastuurka may marin qolooyinka baarlamaanku si xilka si rasmi uga qaadaan laakiinse kolba hadday codeeyeen 170 wax ka badan oo yidhaaheen ma rabno xataa hadday sharci ahaan hayna uga qaadin oo jidkii soo maraan way ka qaadi kari lahaayeen laakiinse xaqiiqda imika waxa weeyaan waxa ka guulaystay xasan khayre ayaa ka guulaystay oo yidhi shaqadii waan iskaga tegey iyaguna sharci darray ku dhaqmeen madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo waxa uu aqbalay xilka qaadista ee golaha shacabka ku sameeyeen xasan cali khayre marka arrintaas sidee u saameyn doontaa isaga waxa weeye sharaf hadday madaxnimadu leedahay ninkan isaga ayaa la soo baxay markii uu madaxweynaha noqday 3 sannadood iyo bar horteed ugu yaraan waxay ahayd inuu siiyo sharafta ah inuu u yeedho hadday baarlamaanku waxaan wadaan hadduuna isagu wadin uu yidhaaho waxyaabahaasaa jira waynankii soo wada shaqaynay hawshii halkaasay maraysaa mala haddee waxa ugu baahannahay inaan isbedelna loo baahan yahay xataa umuu yeedhin kamuu wargelin muu sugsiin markaa waxaa tusaysaa madaxweynuhu inuuna ka soo bixin mas-uuliyaddiisii uu ku raftay runtii isagana waxay ku noqonaysaa waran weyn oo laga yaabo inuuna ka soo kaban karin walaal waxaa harsanaaba dhowr bilood baa harsanaa markaa wakhti dhowrkaa bilood lagu bedeli karo ra'iisul wasaariya dowladdiisa meeshaba ma taallo marka doodii doorashada ma soo xirantay mar haddii xasan cali khayre meesha ka baxay ma soo xidhmase waxa weeyaan xasan cali khayre iyo dowladdiisu inay 3 sannadood sanadka hore marka la dhaafo inay barnaamij adag oo laga shaqeeyo oo arrintaa ku saabsan inay sameeyaan bay ahayd lama samayn arrintaasi markaa ra'iisul wasaaruhu isaga qaybtaa ka mas'uula waxaa laga yaabaa imika in markaa madaxa haysgeliyaan dowlad goboleedyada intooda badan iyo madaxtooyadu oo inta dowlad lasoo dhisayaba muddo qaadanaysaa dowladdaasi lasoo dhisayana sharaf yeelan mayso waa dowlad gacan ku rimisay noqonaysaa markaa ummaddii soomaaliyeed inay baylaxsan tahay ayaa halkaa ka muuqata doorashaduna waxaa laga yaabaa inay dib u dhacdo haddaan ilaahay wax mucjisada oo weyn una halkan keenin walaa maraykanka oo war soo saaray wuxuu walaac ka muujiyey sida haatan wax u socdaan iyo qaabkii xilka looga qaaday xasan cali khayre marka taa maxaa loo fasiri karaa wax weyn looma fasiri karo waxa weeyaan diblomatisku way iska hadlaan oo waxay yidhaahdaan waxaasaa jira laakiinse marka taariikhda dib u raacdid waxaad arkaysaa waxyaabo fara badan oo sidaa ka yidhaaheen ama maraykan ha noqoto ama dowladaha kale ha noqotee marka dambe mawqifkii dhacay uun inay iskala qabsadaan ayaa had iyo jeer dhacda tani hadday ka duwan tahay dee waynu arki doonnaa waxay odhan doonaan ma ictiraafano ra'iisul wasaaraha cusub la keenay laakiinse waxaan islahay sidii kuwii horeba u dhici jiray ayuunbay u dhici doontaa wax weyn iska bedeli mayso siyaasadda maraykanka ee waddanka soomaalida ku aadan walaal dhanka kale ustaadi waatan madaxda dowlad goboleedyada iyo kuwa dhexeba ay isugu tageen dhuusamareeb oo ay heshiis gaareen dhuusamareeb 2 shir ayay ku ballansanaayeen 15 bisha soo socota shirka muxuu ku dambeyn doonaa wallahi waxa weeyaan dee qayb waxaa ka mid ahaa shirkaasi dowladda dhexe waddanka ayaa ka mid ahayd oo xasan khayre ka mas-uul ah tina meeshay ka baxday markaa heshiiskii naafo ayay ku noqonaysaa laakiinse waxaa muhiima in danta dadka iyo dadka masaakiinta waddanka 263 kun ee murabbac maylka ah dadka ku baahsan ee balanbalay 30 sannadood oo dhowdhow inay qolooyinka madaxda sheeganaya ka naxaan oo yidhaahdaan qayrkeen ka hadhnaya maxaan samaynaa inay iloobaan dantooda gaarka ah oy dantaa dadka si run ah uga dhabeeyaan ooy soo saaraan barnaamij cusub oo doorasho keeni kara doorasho qof iyo codhi ma dhici karto waddanka intiisa badan dowladi ma xukunto markaa sidii loo habeyn lahaa musuq maasuqa looga dagaalami lahaa dad u qalmo meeshaas oo dadka ka naxaynahay u iman lahaayeen hadday ilaahay ka baqanayaan sidaasay yeeli doonaan laakiinse xasan khayre ka takhalluskiisu nabar weyn ayuu ku noqonayaa shirkii ka socon lahaa magaalada dhuusamareeb